بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ku qaadan doonaa barashada kombiyuutarka waa maxay qaybaha uu baahan yahay qofku inuu kombiyuutar ka barto si uu hawlihiisa ugu qabsan karo kombiyuutarka si wanaagsan una yeelan karo xirfad uu ku isticmaali karo kombiyuutarka isagoona jaamacad ama college midna u tagin sidoo qaabka ugu muhiimsan oo u baran karo ama shayada uu baahan yahay inuu barto ee qasab tahay qof walba inuu bartana kombiyuutarka meel kasti muhiim buu ka yahay oo noloshii ayuu ka mid noqday hadday waxbarasho noqoto iyo hadday shaqo noqotaba marka dhowr qodob ayaanu ka hadli doonaa oo muhiim tahay qof walba inuu barto qodobka koowaad waa working with computer hardware-ka waa inaad fahmi kartaa computer hardware-ka markaan sheegayno kama wadno inaanu furfurno iyo gudihiisa waxa ku jira ee waa intan visible-ka dusha sare inuu qofka isticmaali karo oo ujeedadeena halkan waxa weeye inuu qofku isticmaali karo mouse-ka ama touchpad-ka waxa loo yaqaano iyo keyboard-ka waa inuu labada isticmaali karo mouse iyo touchpad-ka waa isku bedeli kartaa oo kolba mid baa isticmaali kartaa iyo keyboard-ka haddaba waa inuu barto qodobka koowaad moving cursor-ka sida bahalkan yar loo wadwado oo laga kantaroolo waa inuu qofku yaqaanaa waa kan halkan kasoo muuqda ama calaamada yar leh qofku waa inuu baran karo sidoo kale inuu garanayo click markuu siiyo iyo right click iyo double click waxay kala yihiin waa inuu fahamsan yahay waa kuwan touchpad-ka iyo mouse-ka touchpad-ku waa intan yar ee mouse ku dhex samaysan kombiyuutarka ayaa touchpad loo yaqaanaa markaad click siiso maxaa dhacaya kombiyuutarka ama maxay tartaa waa inuu qof garan karo sidoo kale waa inuu garan karo right click markuu taabto maxay macno samaysaa markuu double click siiyo laba jeer markuu halkan ku celiyo ama isagoo kanba isticmaalayo uu halkaas ku celiyo maxay tartaa tan si kooban u dul marno mar baan cashir practical ka samayn doonaa markaad click kaliya siisid waa select shayga bay ku dooraysaa aad click siisid highlight ay ku saaraysaa shayga ayaana ku calaamadaysan markaa right click haddaad siisidna information-ka soo baxa badan oo bin waxyaabo badan buu ku siiyaa haddaad double click siisana way kuu furaysaa sidaas ayay u shaqeeyaan right click iyo double click sidoo kale waa inuu qof garan karo basic keyboard functions waa inuu keyboard-ka calaamadihiisa backspace-ka retaining-ka spacebar-ka delete-ka tab-ka shift-ga and caps waa inuu buttons-kaas oo dhan si fiican u garan karaa waa escape-ka enter-ta backspace-ka spacebar-ka control window alt shift kuwan waxay qabtaan qofku waa inuu garan karaa tab-kii baa xaggan oo kale ku yaala cap lock-gii waxaasoo dhan waxay qabtaan qofku waa inuu si fiican u garanayo sidoo kale waxa muhiima qofku inuu timing-ka waxoogaa garanayo inaad IT tahay kuma xidhna inaad timing-ka taqaanid oo kombiyuutarka markasta qof kasta ayaa u baahan inuu wax ku qorto markaad wax qoraysid waa inaad ku yar dadeegi karto oo inaad keyboard-ka kolba xarf meel ka raadin oo inaad hal weer qortaa ay kugu qaadaan waqti oo kolba far la doondoonan meeshii ku taalay adoona la raadinayn waa inaad basic-ka skill u leedahay inaad si fiican ugu qori karto qodobka labaad waa operating system-ka inuu qofku garanayo operating system-ka iyadna ujeedadeenu tahay horta waa labo unbaan muhiimadda saaraynaa waa Windows-ga iyo macOS way jiraan operating system kale oo kombiyuutarada lagu isticmaalo laakiin labadan baa ugu caansan oo badanaa dadkoo dhanna isticmaalaan way jiraan Linux iyo operating system kale oo badan way jiraan laakiin labadan ayaa ugu caansan haddaba labadan maxaa laga baahan yahay inaad ka taqaanid waa midda koowaad waa inaad finding and running including program waa inaad program raadin karto programmada ku daaran ee hadda daaran waa inaad garan karto waa inaad iska xidhi karto program waa basic-kaas inaad iska xidhi karto inaad garan kartid basic-ga oo inta bilowga sidoo kale waa inaad garan karto files loo raadiyo iyo folders loo samaysto meelaha ay ku yaalaan folderada aad ku shaqaynaysid iyo aad isticmaalaysid iyo faylashu waa inaad garan karto oo ay ku habaysan yihiin oo aad habaysan karto sidoo kale waa inaad file save garayn karto sidoo kale waa inaad isticmaali karto daaqadda loo yaqaano Windows Explorer-ku waa daaqad halka inagu soo baxda ee folderadii wax laga sii galgalo ee fileska iyo laga manage gareeyo ayaa loo yaqaanaa Windows Explorer sidoo kale qofku waa inuu garan karo kombiyuutarka qaabku u damin lahaa iyo restart-ta waa inuu labadaana garanayo waa qodobka saddexaad waa inuu qofku word processor garanayo word processor applicationska word processors-ka loo yaqaano waa inuu waxun ka garanayo waa laba mid baan ka soo qaadanaynaa waa Microsoft Word iyo Word. Microsoft Word waa
waa barnaamijka caanka ah kuwa ugu muhiimsan ee wax lagu qortaa markaad documenti qoraysid lagu qoraa kuwa badan ayaa jira sidoo kale waxaa jira online kuwa oo Google Documents oo kale ka mid tahay haddaba Word-ka waxaad u baahan tahay inaad barato waa soo qaabka loo soo furo Word file u soo furin lahayd isaad new document markaad soo furatid programkii aad new file uga dhex samaysan lahayd sidoo kale u isticmaali lahayd basic formatka functionka boldka italiga underline-ka font size-ka iyo type-ka waa inaad bedeli karto farta color-keeda noocay tahay size-ka ay leekaanayso halkay oolayso ma laymasha iyo xariiqyada lagu qurxiyo lagu sameeyo waa inaad garan karto sidoo kale waa inaad save garayn karto markaad dhamaysid wixii qortid ee format garaysid waa inaad save garayn karto anaad printing ku samayn karto sidana documenti ku dhamaystiri karto waa qodobada steps-kaas ku xiga inaad programkii la soo baxdo inaad file ka dhex samaysato inaad formattingkii ku samayso kadibna aad save garaysato printing aad odhan karto qodobka xiga ama qodobka afraad ee qofku muhiim tahay inuu barto waa getting online markaan leenahay ujeedadeedu waxa weeye inuu qofku garan karo web browsers iyo web browsersku waa inuu qofku la soo bixi karo web browserku waa kuwan baa loo yaqaanaa waa Chrome Firefox Microsoft Eagle Opera intaas midkaa doontid waa qofba midku xiiseeyo waa inuu la soo bixi karo una isticmaali karo sidoo kale waa inuu website furi karo website-ka waxa loo yaqaanaa www.google oo kale www.facebook www.boromnews whatever website inaad furin karto oonad isticmaali karto understanding linkiskana waa inaad iska fahmi karto oo linkisku waa websiteska lagu gaari lahaa weeyi sida qoraalka yar ee marka soo qormo www.facebook.com oo kale intaas ayaa loo yaqaanaa linkis sidoo kale qofku waa inuu samaysan karo una isticmaali karo email account emailsku way badan yihiin oo shirkado badan oo emailska free emails sameeya jira sida Google account oo kale Gmail loo yaqaano Yahoo baa jira Microsoft baa ayna jirto Hotmail ama Outlook saa u taqaani sidoo kale waa inuu qofku Google-ka wax soo furi karo oo Google-ka wax ka raadin karo una isticmaali karo Wikipedia iyo reference toolska waa inuu isticmaali karo sidoo kale waa inuu videoiska iyo sida loo furo u fahansan yahay qodobka ugu dambeeya aan ku dari lahayn waxa weeye software dhowra oo loo baahan yahay shaqooyinka intooda badan waa Microsoft PowerPoint oo lagu diyaariyo markaad wax soo jeedinaysid oo presentation loo yaqaano waxaana ugu caansan Microsoft PowerPoint sidoo kale qofku Excel wax ka fahansan yahay una isticmaali karo sidoo kale Outlook waa inuu qof yaqaano oo emailska barnaamijyada lagu furaa waa inuu isticmaali karo oo intaas bay nagu joogaysaa cashirkan hadaad ka heshay ama faa'iido leeyahay dadkaad la wadaagi kartaa asxaabtaada sidoo kale haddaad xiisaynayso inaan cashirkan oo practical soo dubno commentigana waad nagula wadaagi kartaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu